qaar ka mid ah odayaasha beesha dadka la haybsooco ee Madhibaan ee ku dhaqan deegaanka Dabataag ee gobolka Sool oo ay la soo daristay xaalad adag kadib markii loo qabsaday magdhan 150,000 oo dollarka Mareykanka ah taasoo ah mid cadadkeedu sareeyo ayna awoodin inay iska bixiyaan iyadoo markaas ay noqotay inay u soo bandhigaan culimaa u diinka gobolka si ay markaas u gaarsiiyaan walaalaha muslimiinta oo ay markaas uga qayb qaataan bixinta magtan odayaashii qoyskan oo soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa u sheegay warbaahinta in dadkii magtan doonaya ay diideen in wax jaanis ah siiyaan oo ay wax ku raadiyaan waqtigan ay fadhiyaan geedkii ay kaga yimaadeen culimaa u diinka gobolka iyo odayaasha qoyskan oo si wada shir jaraa'id u qabtay ayaa ka hadlay umuurtan waa rag ku deymoobay mago lagu yeeshay shil baabuur iyo wiil waalan oo qoyskooda ah oo qof yar loo sheegtay kadibna maxkamad sharci ay ku xukuntay iyagii oo saartay boqolkii magtiisa ahaa iyo shilalkii hore oo looga lahaa lacag yani xoolo gaari ilaa 110 ilaa 100 iyo 210 geela ayaa dadka qoyska loo sheegtay marka la qiimeeyo waxay noqon kartaa lacag ahaan ilaa 105,000 oo dollarka Soomaaliya shilin oo dollarka Mareykanka ay noqonayaan lacagtaas dadka lacagta loo sheeganayo waa qoys kamid ah beelaha Madhibaan ee degan tuulada Dabataag iyo aageeda iyo nawaaxigeeda waa dad runtii iska dhibaataysan oo maxaan ku raahdaa baahidooda iska badan tahay qoys yar oo kooban oo markaan tiro koobkooda weydiinay ilaa 30 qoys aan gaarin tiradooduba oo laga rabo culeyska inta la eg saadaradeed waxay u soo qeesheen dadka islaamka inay u gurmadaan oo dhibta saaran ee loo haysto ay kala qayb qaataan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiis iyo ajar aakhira iyo xasanad ay doonayaan hadii loo gurmado runtii wax weeyaan wax sahlan bay noqonaysaa culeyskaas oo laga qaadi karaa dadka islaamkaana adduunkeena wax isku taraan bay walaal ku yihiin oo islaam ku yihiin marka ummadda islaamka meel ay joogaanba dal iyo dibadba waxaan insha Allah ta'ala ka codsanaynaa inay dadka walaalaha muslimiinta ay dhibaataysan ee markii horeba dulmi badan lagu hayay ummadda dhexdeeda inay maxaan ku rahaa culeyskaas ay iska qaadi kari waayeen u soo gurmadaan si ilaahay dartiisa oo waxtar wax ku oolana ay u soo gudbiyaan insha Allah ta'ala وانا قفك أجر يا خير إلهي سبحانه وتعالى وإلهي ميل سبحانه وتعالى وقلن دونه ونكسن والله سبحانه وتعالى قرآن كله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هذه المركة وعن قعد سنة إن ضدك المسلمين دمان تود إن يسدك ده لو برمده ووفل بتمرتي سو وقعه لأن وانا قرآن يصير هيري لو صدق قيس ولي بدن كود عيديهين بقولي 5,000 دولار سيساق كعيان أما لو بقولي 10 هلان مركز سيساق كعيان مركز واحد ضد المسلمين تا كل دردار مياه ولا الله يا خير الله يدينكم بدلوا قفكي دبعتها كدل الغاضات كدبعتها سنة إلهي وحنا كبرينا يساقنا إن دبعتوينك الدنيا دي آخرة وإلهي أفضل ديو وإلهي هنتدي سي مالكي سي هيركي سكبركيو الله صدق جاري وقدقه dad walaalo islaam ah oo waxa way sidii warbixinta aad ku maqlayseen ayay ku timid wayna iska qaadi kari waayeen arintaas culays badan bay ku keentay kadib culimada gobolka Sool joogta ayay ula soo cawdeen oo Sheekh Cabdi Naasir uu ku jiro ayay ula soo cawdeen sheekhuna culimada ayuu kala tashaday hawsha waxa la go'aansaday marka in waxa weeye lagala qayb qaato wixii lagala qaban karo dadka islaamka caalamka jooga iyo dal iyo dibadana loo bandhigo oo marka iyaguna wixii ay ka qaban karaan ka qabta ayaa la go'aansaday sidaa darteed ayaanu idinku soo gudbinaynaa warbixintan iyo waxa weeye gurmadkan loo baahan yahay dadkan in loo gurmado iyo maadaama iyagii xoolihi ay iska bixin kari waayeen dadkii xoolaha u haystayna waxa weeye ay samri waayaan arinta in dib ka soo gaadha ayaa suurtagal ah sidaa darteed in laga hortago oo dibna waxa weeye damana aanu dhicin iyagina waxa weeye wixii ay iska bixiyaan oo iska dulqaadaan ayaanu hawsheedu ku soo gudbinaynaa waxaanu ka codsanaynaa marka dadka muslimiinta ee caalamka jooga iyo dal iyo dibadda meel kasta ay joogaanba arintani ay damqayso arintan waxa weeye ay damqayso dhib culayskeeda ay dareemaya fahmaya culimada iyo indhaar garadka iyo wax garadka hawsha fahmaya culayska ay leedahay waxaan ka codsanaynaa si waxa weeye wanaagsan oo deeqsinimo leh inay hawshan
ay nogala qayb qaataan dadkana waxa weeye dhibaatadan loola gurbado oo lagala qayb qaato arinta hawsha waana culaysisay meelaanu markaa ula irkano oo aan islaamka iyo culimada gobolka ahayn dal iyo dibadba waa garan weynay kuwii naga doonayayna waa dadka maanta aad ogtihiin xaalkiisa Soomaaliyeed qoriga ka bay iskala ordayaan hawlahaas annaka haysta hadaad walaalaha yatiin dadka dibadaha jooga iyo kuwa dalka joogaba waxaanu idinka codsanaynaa inaad soo gargaartaan walaalnimo darisnimo dadkii ka dhashay baanu nahay sidiina ula yaala reer kala bayr baanu nahay reer daba taageed baanu nahay arrimaha iyagu sidaa weeye ilaahay markaa wuxuu idinka fujin doonaa aakhiriya adduunkaba waxay dhibaataa oo waliba si degdega aad ma garanaysaa wax noogala qabataan maalin dhaweyd anagoo aan waxba hayn baa ilaahay baa igaga sareeyay baabuur iyagoo wata yaana lagaga duldegay meel miyiga oo gumburka la yiraaho waxba anagoo aan ururin oo diraac ka soo doognado aan wali wax ururin bayna inaga duldegeen geedka yacubka ka kiximayna yiraahan rabbi baa igaga sareeyay warmahayna waxba waa ururinayna islaamkaan idin dhexgalaynaa hadee wax iyagaan wixii haray siinayna in sugo geedka yacubka ka kiximayna warbalyo kana raata ugu baqtiyeen dabataag iyo meeshii magaalada ahayd aad biyo u doonateen aroora ee muddo noo qabta rabbi baa igaga sareeyay hal habeen inay noo qaban hadda waa hal habeen oo maalin noo qaban oo bil noo qaban wixii noo doona geedkii tabiicaad tirahdeen biyaha waroore dabataageed baan isuguna kiibay noo fadhiyaan marka waxaanu idinka codsanaynaa gargaar dhakhsale inaad naga soo gaarsiisaan arrintaana sida culimadu u sheegtay culimadu way og tahay tii sintay bay kamid tahay arinta tii joogtay bay kamid tahay sheekhyada hadlaya kuwaas ay kamid ahaayeen maanta ka hor ulama aan soo caban xigaalka iyo muslimka iyaga dhibaato min ulama aan soo caban waxa yagaan iska bixin jiray ama dhibaataba maana arki jirin inaga soo gaar hadii aad walaalada yaatihiin insha Allah ta'ala marka xoolaha markii la isu geeyo culimada islaamka iyo anagu baan isu geynay waxay noqotay $105 Mareykanka ah waxay lagu noqotay culays tirakoobteedana waxay noqotay qoysas ahaan markaan qiyaasnay ilaa 30 wax ka yar marka culayska inta leeg waxaan la soo cabanay dadka islaamka ah meel kasta ha joogeen ama dibadda ha joogeen ama dalka ha joogeen waxaan doonaynaa dar ilaahay arrintaana wax noogala qabtaan si kastaba haatee qoyskan ayaa la dhibaataysan bixinta cadadka faraha badan ee magtan taasoo ay dadka muslimiinta si naxariis leh uga codsadaan inay ka qayb qaataan cabdiqani ismaaciil goox somsa TV laascaanood